Wasiirka Xafiiska Biyaha ee Dowlad-deegaanka Soomaalida Injineer Axmed Miraad ayaa si rasmi ah u shaaciyay in la diyaariyay xeer nidaamka dhaqangalka bayaanka biyaha, kaas oo loo arko tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo hufnaanta iyo tayada adeegga biyaha ee deegaanka. Wasiirka ayaa xusay in xeerkan cusub uu yahay mid lagu xoojinayo nidaamka maamul iyo bixinta adeegyada biyaha, isagoo tilmaamay inuu wax weyn ka bedeli doono caqabadaha dhinaca biyaha ee ka jira gobollada kala duwan ee deegaanka. Qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan ayaa ah in dadweynuhu helaan biyo nadiif ah oo joogto ah, in la caddeeyo nidaamka loo maareeyo ilaha biyaha laga bilaabo heer deegaan ilaa heer tuulo, in meesha laga saaro galdaloolooyinkii ka jiray dhanka sharciga ee ka hortaagnaa horumarka biyaha. Xeer nidaamkani wuxuu fure u yahay in si cilmiyeysan oo sharci ah loo maareeyo kheyraadka biyaha. Ugu dambeyn, hirgelinta xeerkan ayaa qayb ka ahaa qorshaha ballaaran ee xukuumadda Dowlad-deegaanka Soomaalida ay ku dooneyso inay ku xaliso biyaha aasaasiga ah ee bulshada, gaar ahaan helitaanka biyo ku filan. Maanta waxaan u qabsoomay kulan lagu soo jeedinayay xeer nidaamka dhaqangalka bayaanka maamulka adeegga biyaha iyo dareeraha ee magaalooyinka iyo tuulooyinka miyiga ee Dowlad-deegaanka Soomaalida. Kulankan ujeedadiisu wuxuu ahaa in loo soo bandhigo bahwadaagta biyaha sharcigan cusub si ay uga tala bixiyaan talooyinkaas waxay u yihiin muhiim u yihiin. Sharcigani kulley waxaa lagu baahday, waxaa jiray bayaan hore loo sameeyey oo loogu talagalay in lagu maamulo adeegyada biyaha. Meelka si loo dhaqangeliyo bayaankaas waxaa laga maarmaan noqotay in la sameeyo xeer nidaamka. Xeer nidaamkani wuxuu xoogga saarayaa inta badan sidii loo maamuli lahaa adeegyada biyaha, gaar ahaan darajisiinta wakaaladaha biyaha iyo sidoo kale sida u noqon lahayn kuwo isku filan oo kharashkooda la soo baxa. Waxaa kaloo xoogga uu saarayaa in la dhiso guddiyo maamula biyaha oo la xisaabtama wakaaladahaas. Wakaaladuhu 3 bilood mar qiimeeya, isla mar ahaantaana ka tala bixiya shaqada maareeyaha uu hayo. Kulley sidaan ognahay inta badan maamulka biyuhu meelo badan oo ka mid ah dhalilaa jiray, gaar ahaan dhinaca wakaaladaha. Marka xafiisku wuxuu xoogga saarayay sidii dadaallo badan loogu bixin lahaa in la dhiso wakaalado awood u leh inay maamulaan ilaha biyaha ee ka jira deegaankeena, isla mar ahaantaana bulshada gaarsiiya biyo nadiif ah. Sidoo kale u noqdaan wakaalado iyagana isku filan oo la soo bixi kara kharashka ay ku maamulayaan ama ay ku bixinayaan adeegaas. Waxaan kaloo xoogga la saarayaa in ay noqoto nidaam isku xiraya biyaha iyo laftikooda dareeraha. Qashin badan oo dareero waxaa jira la halmaala oo biyaha saameyn ku yeelanaya, ama wasakheyn haddii noqoto dhulka hoostiisa, gaar ahaan biyaha dhulka hoostiisa. Sharcigani waxaan is leenahay wax badan buu ka tari doonaa nidaamka maamulka adeegyada biyaha guud ahaan, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan wakaaladaha biyaha. Wuxuu sahlayaa in maamulada degmooyinka iyo maayarada laftirkoodu ay qayb ka qaataan maamulka ilaha biyaha ee ka jira aagga ay maamulayaan.